قرن مركب حنقة هذا الناي إن الكوه تكدفاع عنه دين الإسلام كا أو أي كبان ومنيان أو يقربيان baxdo waa magaalo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha dalkeena Soomaaliya waxay 90 kiiloomitir dhinaca bari ka xigtaa degmada Cadaado ee gobolka galgaduud 17kii Juun ayay argagixisadu ku qaadeen weerar aysan mahadin oo looga dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad gaadhaya ilaa 72 isla markaana waxa looga qabsaday maxaabiis iyo saanad ciidan waxaana laga fashiliyay qarax gaadhi oo ay ku soo rareen kaasi oo noociisu ahaa Land Cruiser ama Leyla Calaawi qofka sida uu yaqaano maalintii xigtay waxaan safar ku tagay magaalada Baxdo anigoo ka degay garoonka diyaaradaha ee Cadaado isla markaana safar dhulka ku tagay magaalada Baxdo intii aan sii socday wadada aan marayay waxay ahayd mid amni ah iyadoo aan sii marayay tuulooyin iyo deegaano kala duwan kadib waxaan si nabad ah ku gaaray magaalada Baxdo waa magaalo aad u ballaaran isla markaana waxay marin isku xidho u tahay deegaano iyo degmooyin kala duwan oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud qofkii maqlay Baxdo dagaal baa ka dhacay isla markaana aan joogin goobta waxa uu sawiranayay inay noqotay goob laga qaxay balse taasi ma ahayn meeshan soo arkay magaalo shaqaynaysa oo ay furan yihiin dukaamada iyo goobaha ganacsiga bulshaduna ay yihiin kuwa degan oo aan bas ahayn meeshan ayaa shalay lagu dagaalay kadib guushii ay gaadheen waxay keentay in isla maalintii xigtay ardaydii wax ku baranaysay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee magaalada Baxdo ay u fadhiistaan imtixaankii shahaadiga bulshada iyo ciidankuna ay si nabad ah ugu wada shaaheeyaan makhaayadaha magaalada Baxdo kani waa masaajidka ugu weyn magaalada Baxdo argagixisadu waxay la dhaceen wax kastoo ay awoodeen oo hub ah meel kastoo aad ka istaagto masaajidka waxa ku yaala gunjubka rasaastii ay la dhaceen argagixisadu tani ayaa caddayn u ah inaanay argagixisadu rabin wax diina maadaama laga celcelinayo beydkii Ilaahay maxay tahay ujeedka dhabta ee ciidanka u abaabulan habka deegaanku ay ula dagaalayaan argagixisada nimankan khawaarijta ah oo dalka Soomaaliya aan fiiriyay baa waxa weyn soo ataagay deegaanka soo ataagay qorga marka waxaan u qaadanay in maadaama markaan ogaanay anagu aan raadinay inay duulaan ku yihiin diinta islaamka hadda masaajidkan u jeedaa waxa weeye waxa ku taala 500 xabadood nooc qoray la rido aan ku dhicin isku dhifan laba waxaan markaan ogaanay beydka Ilaahay inaan ka difaacno iyo dadka culimada oo ehelka u ah iyo dadka shacabka oo dalka ku nool inta anagu aan ka gaarno inaan ka difaacno baan qor u qaadanay door nooceeya ayay culimada magaalada Baxdo ku leeyihiin dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab waxaa kalifay in meeshan culimadu iyo bulshadeeda degmada Baxdo inay is abaabulaan muddo badan oo aad u fara badan ayay waxay sameeyeen inay maaragtay ka soo wacaan deegaanka ay yiraahdaan waxyaalahaas sida annaga aan dareemayno inay Ilaahay waxyaalaha aan ku dhawaanayno sida digriga oo kale iyo maaragtay iyo la damiyo limaada noocaas ay dhowr mar u tahdideen waa diideen telefoonada inoo soo xijabeen kadibna culimada waxay go'aan ku qaadatay inay naftooda iyo diintooda iyo sharaftooda ay difaacdaan ilaahay kala joogo ay weerar subax ku soo qaadeen ilaahayna uu qadaray in bulshadu iyo culimada kacaba oo iftiinka u ah beledka inay maaragtay ay kala hortagaan xabad maadaama ay ogaayeen waxyaalaha ay u socdaan inay ku yihiin culimada oo waxyaalaha taakidka ah ee beledka ay u socdaan inay ahayd masjidka iyo culimada deegaanka alxamdulillaah ilaahay fadligiisa ku ahaatay wax dhiba culimada gaaray ma jiraan gudoomiye ku-xigeenka magaalada Baxdo Axmed Salaas Sheekh Dheere oo aan kula kulmay gudaha magaalada ayaa iiga warbixiyay xaaladda magaalada isla markaana ka dhawaajiyay inay ka shacab ahaan fahmeen dagaalka argagixisada meeshan dadka shacabka waxay fahmeen nimankan waxay inaan la arag صح cayayaan yani buufin u baahan inay yihiin fahmeen صح
وين فهمسين ولما أنا فهمسين بدن واحد بقتين ولا تقبل أنا مجرته وين أقدرين لسه على كرو الصومالي ودم waxyaabaha hadii la ku reeyay meeshan waxa ka dhacay ee ku cibro qaadan karta ama qofkii la dagaalamay meel kasta oo qof hadii la ku reeyay ku dhibaatay soo nimankaas duuleystaan u joogo waxaan kula daarmayaa waxay inaysa jireen in iska celshaan annagana tusnay awal dad hore la dagaalamay way jiraan sidoo kale oo hadii la ku reeyay madaxii saraakiil ka laayay meeshan dadka lagu dilay waxa kamid dad saraakiil waxa kamid nin la yiraahdo Saciid Carab oo hadda ninkii xarada Buruundiga weeraray ee Albaraf صح ayaa kamid صح dad ajaanib ah kamid صح saraakiil waaweyn meeshan ku